kulankan oo lagaga hadlayay xuska toddobaadka naasnuujinta carruurta oo maanta lagu qabtay xarunta xanaanada dhexe ee magaalada Burco ayaa waxaa lagaga hadlay sidii ay hooyooyinku xilligan uga qayb qaadan lahaayeen inay carruurtooda naaska nuujiyaan. kulankan ayaa sidoo kale waxaa lagu gorfeeyay ahmiyadda ay leedahay in hooyadu ay ilmaha naaska nuujiso ugu yaraan 2 sano ee hore si uu ilmaha yar ugu kobco nafaqadiisa iyo weliba jismigiisu. hooyooyin badan oo kulankan ka hadlay oo ka socday wasaaradda caafimaadka iyo macadka barashada caafimaadka ee Burco ayaa waxa ay uga digeen hooyooyinka ku dhaqan gobolka Togdheer inay carruurtooda siiyaan caanaha daasadaha, waxaana ay ugu baaqeen inay carruurta siiyaan naaska hooyada oo u fiican bay yiraahdeen ilmaha yar. badan buu ilaaliyaa hooyada kansarku ka ilaaliyaa hooyada naaska la jaqo ee naaskeeda la jaqaa in badan kuma dhaco cudurka kansarka la yiraahdo naasaha ku dhaca. haddii ay hooyadu laakiin caanaha isku gaaxiso oo ay marba diido waxa laga yaabaa inaad aragto marka guryaha ama maraysa ama aad hooyo godlatay oo caani celinaysa ilmiina jaqaaqdahayo masaasadna ruuxaysa indhahayga sansaaro ilaahay bay iga sareeyay masaasadina way ruuxaysa oo qaboojinaysa caani godladayna way celinaysaa saasay u celinaysaa ilmiina waadaas waxay leedahay aaman ku qaboojiyo dadku sida u fahansan yihiin ayaa kala duwan qaar fara badan oo hooyooyinka ka mid ah ayaa ilmahooda naaska siiya waana wax soo jireena oo berigii hore hadda taariikhda dib u raacdo carruurta la dhali jiray waxay kala weynaan jirtay 2 sano sababtay u kala weynanta waxay hooyo waliba ilmaheeda 2 sano ay sii jirtay iyadoo aqoon balan oo miyi joogta ayay haddana 2 sanadood ilmaheeda naas sii jirtay iyadoo caano iyo biyo toona ugu daray caanaha naasku waa diyaar caanaha naasku waa nadiif caanaha naasku mar walba waa diidayn caanaha naasku waxa weeyaan wax kuu diyaarsamo naaskaaga kuugu jira kaama go-ayaano lacag ma raadinaysid waxa baraarujinteena maanta kelmadeenu ay tahay ilmaha naaska waxaanayna siin 6 bilood ay ugu horeeyeen. iskan toddobaadka naasnuujinta carruurta ayaa sidoo kale waxa uu dabada ku hayaa sidii ay hooyadu ilmaheeda ugu dhiiran lahayd inay naaska nuujiso isla markaana ay ka ilaaliso waxyaabaha kale ee ilmaha yar u keenaya caafimaad darrada. muddooyinka ugu dambeeyay waxaa lagu arkayay magaalada Burco iyo guud ahaanba gobolka Togdheer nafaqa darro ballaaran oo soo food saartay ilmaha inta uu ka yar yahay 2 sano, taasoo ay ugu wacan tahay in ilmaha hooyadu ay la baalmarto inay naaska nuujiso isla markaana ay siiso caano kale. waxaana isa soo tarayay sidoo kale muddooyinka ugu dambeeyay wacyigelinta ka dhanka ah caanaha ilmaha yar la siiyo guud ahaanba lagu qabanayay gobolka Togdheer. waa Sabri Aynaba News Burco.